Oday baa guursaday gabadh carmal ama garoob ah oo isaga intoora ka yar. Odaygu beryahaas uun buu aroos galay oo odayaasha saaxiibadii ahi mabay aragba gabadhan uu guursaday odaygu. Maalintii dambe isagoo geedka la hoos fadhiya odayaashii ayaa gabadhii uu odaygu guursaday iyadoo markaas uun saylada ka timid soo ag maraysa geedkii odayaashu soo hoos fadhiisan jireen ee gurigeeda u dhowaa. Odayaasha waxaa ku jira odaygeeda. Haddaba markii ay dhaaftay ayay odayaashii mar qura wada jaleeceen gabadhii oo qaarka dambe u yara weyneed. Odaygii gabadha qabay ayaa intuu dhidid waaweyni ka soo booday isagoo wejigiisa hinaase ka muuqdo odhanaya, naanaga fadhiiso annagiina nawaashay muslinkiina waashaya. Markaa fariin buu u dirayaa odayaashan oo uu ku leeyahay war hayga eegina. Iyadana uu ku leeyahay dadka ha soo hormarin. Waxaad sheekada soo qaadan kartaa markii aad qudhaado hinaasto aad si qosol la u dhiibanaysid fariintaada. Waliba markii aad aragtid iyadoo xaaskaagii ama ninkaagii ilku maqan tahay oo la eegayo. Halkaas haynugu joogto sheekadani. Daawade haddii ay tahay markii kugu horreysay aad na soo booqato, fadlan subscribe lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.